gabanaha ismaamulka Gaarisa Nadiif Jaamac oo ay u helinayaan senatarka ismaamulkaasi Cabdulxaaji iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdi Dhaqane ayaa maanta kormeer iyo xarig ka jaris isugu jiray ku soo maray mashaariic waaweyn oo laga fulinayo gudaha magaalada Gaarisa. socdaalkan oo qayb ka ah qorshaha ballaarinta adeegyada bulshada ayaa mas'uuliyiintu waxay marka hore bilaabeen garoonka ciyaaraha ee Gaarisa. garoonkan oo loogu talagalay inuu qaado 8,000 oo qof ayaa wajigiisa koobaad uu hadda maraya 70% iyadoo lagu wado in lagu soo gabagabeeyo dhamaadka bishan si loogu gudbo wajiga labaad. gudoomiye Nadiif ayaa faray qandaraaslayaasha inay dedejiyaan shaqada si dabaaldega maalinta jamhuuriyadda ee sanadkan loogu qabto garoonkaasi. A project that we are proud of, a project that is really a flagship for the county. A project that has been long waited by the people of Garissa and particularly by the sports fraternity. You heard our colleague here from KFF saying that we have been talking about this thing from my first term as the governor. So really for me this is a dream come true and for many of us. And today I'm extremely happy and honored that I have my senator with me, the county senator. Pitia kuangalia vile kazi ya stadium inaendelea, na tumeona na tumetembezwa na governor na engineers ambao wako hapa, na tumeona wametengeneza stadium nzuri, na umuhimu ya stadium si kwa ajili ya wachezaji mpira peke yake. Tumemuuliza maswali engineer na governor na wametuhakikishia kwamba kiwanja ya kukimbia pia itatengezwa, na vijana wetu ambaye hawachezi mpira pia mchezo wa kukimbia ni mchezo ambaye inatambulika duniani mzima, na tunataka vijana wetu wa Garissa pia wajishiriki, ndio siku moja tutume kijana kutoka Garissa kwa Olympics inshallah. Kuweka mradi kama hii ni kitu moja. Nafikiri tutaendelea kuongea na governor aweze kuhakikisha sports hapa Garissa inapewa nguvu ile inahitajika, ndio vijana yetu pia waweze kupata makazi kutoka michezo tofauti. This is na kuna wengine walikuwa nasema hii ni ghost project, lakini leo imedhahiri kwamba this is a really live project ambayo inaendelea, which is about 70% complete. With 70% complete, na tunashukuru governor na my engineers ambao wamefanya hii kazi, and I'm sure as they have given the timeline, this December it's likely we will celebrate our Jamhuri Day here in this field. Na tunaambia watu wa Garissa, let's support our government. dhinaca kale wafdiga ayaa booqday cisbitaalka heerka afraad ee Bule Madiina, halkaas oo ay xariga kaga jareen qaybo cusub oo isugu jiro kuwa bukaan socod ah iyo qaybta caruurta. sidoo kale hogaamiyaashu waxay dhagax dhigeen dhismayaal cusub oo lagu kordhinayo cisbitaalka. waxa ay tahay sharaf weyn inaan maanta meeshan aan imaado Bule Madiina oo halkan aan shaqada arkaysiin aan ka qabanayno. cisbitaalkan oo sidaad maqasheen ahaan jiray dispensary baa kadibna wuxuu noqday health center, haddana maanta wuxuu marayaa level 4. marka arrintaas arrin yar ma in run ahaantii muddo yar gudaheeda in cisbitaalkii intaas oo uu soo dhaafo oo fursooyinkaas fiican uu soo dardaro oo maanta uu level 4 taagan yahay oo uu ku xigo un level 5 ka oo Kenya oo midkeena weyn ka runtii shaqo weyn baa la qabtay, mana noqon kari lahayn level 4 haddii hadda shaqooyinkan faraha badan oo dhismooyinka aan lagu dari lahayn. waxaa keenayaa inuu level 4 noqdo in uu qabo theater oo maanta waa arkayseen waan bilownay, inuu qabo maternity weyn oo ilaa iyo 30 sariir maartay la dhigi karo oo damaad ma hooyooyinku u wuli karaan, in ragga meel ayaga naftigooda ay saxdaan oo kan hadda maanta aan isagana aan jeexnay uu yahay,
marka intaas iyo in kale oo lagu daray la ajligeeda buu Labakow ku noqday waana ay farxad weyn run ahaantii inaan maanta marka ugu horreysay weeyaan oo anigu run ahaantii aan soo dhex istaago si rasmi ah cisbitaalka Buulamadiina Level 4 Hospital aad iyo aadna waan u faraxsanahay shaqada wanaagsan ee meeshan ka socoto marka waxaan leenahay hambalyo reer Buulamadiina. intii uu kormeer ka socday gudoomiyaha iyo senatarka ayaa si rasmi ah u daahfuray wadada cusub ee laamiga ah ee isku xiraysa Buulamadiina iyo Burburis taas oo wax weyn ka bedeli doonta isku socodka ganacsiga iyo dadweynaha. So leo hakika tunafuraha kwamba tumemaliza ujenzi hii ya 1.5 kilometer. This one now is a job well done. Yetu hii ya kaunti na Yakura imefika vizuri. So a big section of Buulamadiina has now been covered by summer. So hakika I'm happy and glad that this has come through. Sisi yetu ni kazi na kazi tuko na maendeleo. Asanteni sana.